kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. inkastoo aan waqti aan fogeyn aan idinla wadaagnay warbixin la xiriirta rikooro oo uu Lionel Messi sameeyay halka CR7 uusan weligii samayn doonin. haddana waxaan idinla wadaagi doonaa 5 rikoor ee uu sameeyay dadaalaha ugu weyn ahna kan ruuxay kubadda cagta caalamka 10kii sano ee la soo dhaafay ee Cristiano Ronaldo, taas oo uusan samayn doonin Messi-ga Barcelona iyo Argentina. haddii aad u baahan tahay inaad ogaato rikooradan, fadlan inala daawo muuqaalkan. in koob kasta oo suuragal ah lagula guuleysto laba kooxood oo waaweyn. sanadii 2008 Cristiano Ronaldo ayaa Manchester United kula guuleystay koob kasta oo suuragal ah inay kooxdu ku guuleysato, sida horyaalka iyo tartanka Champions League, taasoo uusan weligiis ku fikireenin Messi maadaama uu iska joogo hal koox oo kaliya. balse Ronaldo ayaa sidoo kale ugu yimid Messi hoygiisa Spain, isagoo sidoo kale burburiyay wax kasta kana yeelay inuu dafiro awoodda saaxirka kubadda cagta ee Messi maadaama uu Real Madrid gacanta u geliyay koobkii sugitaankiisa lagu daalay ee La Decima. sidoo kale 3 kale oo xiriir ah iyo koobab oo xidig weyn ku faani karo, waana midka kaliya ee guuleystay ku noqday laba kooxood oo miisaan leh marka laga barbar dhigo Messi. 2 in xidig uu dhaliyo 50 gool 6 xilli ciyaareed oo isku xigta. kan kaliya ee sidaas sameeyay waa Cristiano Ronaldo, halka Lionel Messi uu yahay kan ugu hanashada badan kabta dahabka ah ee qaaradda Yurub marka loo eego Ronaldo. balse boqorka Portugiiska iyo kooxda kubadda cagta Juventus waa uu kaga sareeyaa Messi marka loo fiiriyo in 6 sano oo xiriir ah uu ansixiyay 50 gool laga bilaabo 2010 ilaa 2016, waxaana uu ka yaabiyay qof kasta oo kubadda cagta la socda. Messi 3 jeer oo xiriir oo kaliya ayuu joogteeyay inuu dhaliyo 50 gool, waana kala bar CR7 oo 6 jeer sameeyay joogteeyayna in xilli ciyaareed kasta ay ku dhex jiray waqtigaasi uu ansixiyo 50 gool. 3 in xidig uu 6 sano ku guuleysto gool dhalinta tartanka Champions League. Cristiano Ronaldo waxaa lagu naanaysaa boqorka tartanka loogu jecel yahay Yurub ee Champions League maadaama uu yahay ninka taariikhda tartanka ugu goolasha badan, isagoo marqaati u haysta inuu tartanka dhagaweyne ka ansixiyo 121 gool. waxuu 15 gool ka badan yahay Messi maadaama uu gool dhalinta Champions League hantay 6 jeer, waana in ka badan Lionel Messi oo 4 jeer hantay taariikhda. 4 in xidig uu 40 gool ka kala dhaliyo 2 horyaal oo ka mid ah 5 horyaal ee loogu jecel yahay qaaradda Yurub. xasuustii 2008 marka lagu laabto Cristiano Ronaldo waxa uu ahaa sanad cajiib ah oo uu hantiyay wax kasta uu doonayay, mana uusan joojin inuu dhaliyo goolal kulamada ugu muhiimsan ee kooxda. waxaana uu xilligaasi gaaray rikoorkii goolasha ee Alan Shearer ee ahaa in xilli ciyaareed laga dhaliyo EPL-ka 30 gool, waxaana uu xilli ciyaareedkaasi dhaliyay 40 gool, xilli intaasi in ka badanba uu ku sameeyay Real Madrid waana 6 jeer. hadda waxa uu ku sugan yahay kooxda Juventus, waxaana uu dhaliyaa goolal qurux badan. malaha mar kale ayuu dunida ka yaabin doonaa CR7 oo uu halkaasi ku dhalin doonaa 40 gool iyo wax ka badan, taasoo noqonaysa rikoor uu haysto kabtanka Portugiiska ee Cristiano Ronaldo. Messi-na uusan weligii samayn doonin maadaama 90% la aaminsan yahay in Messi uusan ka tagi doonin Barcelona. 5 kasoo muuqashada shaxda sanadka isagoo kala matalaya 3 koox oo kala duwan. Cristiano Ronaldo ayaa sidaasi sameeyay isagoo kala matalaya kooxaha Manchester United, Real Madrid iyo Juventus, isagoo ku muujiyay inuusan u baahnayn Cristiano Ronaldo inkiraada waxa uu qaban karo, xitaa isagoo ay da'diisa tahay mid ka fog tayadiisa. xidiga kaliya ee sidaas sameeyay shaxda sanadkana ka soo muuqday isagoo 3 koox kala matalaya waa Zlatan Ibrahimovic,
Lionel Messina lagama yaabo inuu hadda kadib sameeyo amaba uu jabiyo rikoorkaasi. Lionel Messi waxa uu iska joogaa hal koox tan iyo markii la maqlay magaciisa. CR7 waxa uu ka ciyaaray 4 horyaal oo kala duwan, waxaana uu dunida tusay sida uu kaga wanaagsan yahay Lionel Messi marka loo eego la qabsiga iyo in kaligiis uu isbixin karo, raganimo iyo dadaal oo lagu daray xirfad wanaagsan iyo wadankiisa uu koob ku hogaamiyay. waxa uu CR7 kaga muhiimsan yahay wiilka Barcelona ay ku faanto ee Lionel Messi. daawade inala wadaag fikirkaaga, miyuu jiraa rikooradan mid ka mid ah oo uu Messi jabin karo adiga oo ka qiyaas qaadanaya da'da iyo waqtiga uu kubadda cagta ku sii dhex jiri karo Messi, sida uu jecel yahay Barcelona, sida uu nasiib ugu yeelan qarankiisa iyo waxyaabo badan oo suuragal ah inaad ka shidal qaadato.